Senatarkii hore ee countiga Mandera, Injineer Maxamed Macalin Maxamuud Mohamed, ayaa waxa uu ka hadlay muranka sii xoogeysanaya ee ka taagan qorshaha lagu dhisayo garoonka Karo. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu Senator Mohamed ugu baaqay dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintan inay dejiyaan xiisadda isla markaana ay diiradda saaraan wadahadal iyo xal sharci ah halkii ay ka sii hurin lahaayeen khilaafka. Mohamed waxa uu sheegay in hay'adaha ay khusayso sida National Land Commission, Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Kenya Airports Authority ay tahay inay si cad qoraal ugu sharaxaan nooca mashruucaasi, cidda iska leh, iyo inuu yahay garoon rayid ah amaba saldhig ciidan. Sida uu sheegay senatarkii hore ee Mandera, dastuurka Kenya qodobkiisa 63 waxa uu si cad u ilaalinayaa dhulalka beelaha ee loo yaqaan community land, waxa uuna sheegay in bulshada deegaanka ay xaq u leeyihiin in si buuxda looga qaybgeliyo go'aan kasta oo ku saabsan dhulkooda. Sidoo kale waxa uu xusay in xeerka Community Land Act ee 2026 uu dhigayo in oggolaansho buuxa laga helo dadka deegaanka ka hor intaanan wax mashruuca laga fulinin dhulalka ay wada leeyihiin. Bulshooyinka ku nool Karo, Ledi, Oda, Carabiya iyo Libixiya ayaa horey u muujiyay walaac ay ka qabaan mashruucan, ayagoo sheegay inuu saameyn ku yeelan karo guryahooda, daaqa xoolaha iyo nolosha kumanaan qoys oo xoolo dhaqato ah. Senator Mohamed ayaa ugu baaqay shacabka Mandera in aysan isu kala qaybinin qabiil amaba siyaasad, balse ay mideeyaan codadkooda si loo ilaaliyo daahfurnaanta sharciga iyo weliba danaha shacabka.